بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. وحنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa isu yimid magaalada Toronto oo maalinta oo ah maalin 7 December 2019 baar ay soo jeedinayaan beelweynta Mudullood ee Wacaysle ee degan magaalada Toronto. hase ahaatee waxaan ku bilaabaynaa maadaama aan dad muslimiin aayadihii Quraanka waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Xuseen Jimcaale falyatafadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نوعا في آياتها قرآنك. هذا 6 سنين برنامج كان بلابلنا وحن رواءنا عن سوجيدينتي باقة إن هل كان كعقليو تاسو 6 وسعته هو دولة فدرالية الصومالية مامور goboleedka galmudug iyo beesha caalamka iyo waxgaradka iyadoo tafatiran waxay u qoran tahay sidaan aan hadda hoos ku soo akhrin doono baaqa ay soo jeedinayaan beelweynta Mudullood ee Wacaysle oo degan magaalada Toronto Canada. jaaliyadda Wacaysle waxay baaqan si toos ah ugu diraysaa beesha caalamka. 2 dowladda federaalka Soomaaliya. 3 maamul goboleedka galmudug. 4 duubabka siyaasiyiinta xildhibaanada iyo waxgaradka beesha. 2 beelweynta Mudullood ee Wacaysle ee degan magaalada Toronto Canada waxay ka soo horjeedaan sida wax loo qeybiyay xildhibaanada oo cadaalad darrada ah ee maamul goboleedka galmudug. Number 3 mar kale jaaliyadda waxay ka soo horjeedaan sida loo qeybiyay xilalka sare sida madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka galmudug. 4 jaaliyadda Mudullood ee Wacaysle waxay xaq u leedahay in laga dhigo madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen ama gudoomiyaha golaha shacbiga. 5 haddii codsiga kor ku xusan siduu yahay loo fulin waayo waxaa mas'uul ka noqon doono wixii dhaca dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug. wabillahi tawfiiq. baarka hordhiciisa waa intaasay isagoo tafsiir ahna gadaal ayaan uga warrami doonaa. waxaan hadda ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha beesha Wacaysle ee North America عبد الله محمود أفرح فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أنا أقول الله يا مجا مدلول أنا أقول الله يا قدومية نورث أمريكا أو قيبسان ومدلول وحن أشيء يا مدحوينها رئيس وزراء guddiga maamulka hayo inay ku dulman yihiin beelweynta Mudullood. qolo kasto beesheeda waa u maqan tahay midda idiin sheegayno anu ka qaadamayno
haddaad dad lacag amba wax siisiin oo xaquuqdeena soo celi weyso anukaa xaquuqdeena soo celayno internationalka communitygana waa ku dacwoohaynaa mana yeeli doono waxaan idin leenahay soomaaliya oo dhan inay xaqayna xildhibaanadayna kama hadlaan dad kalaa noo hadlaan xildhibaanadeynana waxaan u sheegayaa xaqayna inay ka hadlaan hadday ka hadli waayaanna nama matalaan dadkeena North America jooga taasaa noo ballan leh dhawaanna waa soo gelaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha markaana waxaan ku wareejinayaa mikrofoonka fanaanka weyn ee Cali Muuse Cadde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي أنا waxaan ka hadlayaa degmada Ceeldheer ama Mareeg taariikhdeedii markaan taariikhda dib u raacno degmadaas Ceeldheer iyo inta ay ka kooban tahay sanadku markuu waa 1939 ayaa horta degmada Ceeldheer laga soo raray Mareeg oo loo soo raray degmada Ceeldheer taariikh ahaan Ceeldheer iyo degmooyinka ku yaala waa degmo ku taala gobolka Galgaduud waxay ka mid tahay degmooyinka ugu qadiimsan gobolka Galgaduud waxay dhacdaa dhinaca koonfur bari ee gobolka degmadan waxaa dega qabiilka Abgaal ee Wacaysle waxay 18 kilomitir u jirtaa xeebta Mareeg haddaba waxaa jirta taariikh hore ama gabay hore loo tiriyay gabaygaas waxaa tiriyay Allah u naxariistay nin la dhihi jiray Jimcaale Dhagataag gabayyo dhan ma wada qaaday laakiin Jimcaale waagaas ama sanadkaas ayuu wuxuu ku xusay in degmadaas dadka ka soo jeeda la qariyay taariikh ahaan sida awgeed wuxuu leeyahay Jimcaale niman baa qabowsaday hilbaha qadada maalmeede niman baa qasnaadada xirto qalad wax loo siiyay annaguna waxaan soo qornaba waa la qariyay qoodhiin iyo xiridiin maxaa qadiyay Ceeldheer waxaan filayaa odayaasha ayaa iga dambeyn doona intaasi waa taariikhdii koobleed ee degmada Ceeldheer aan ka hadlayay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad u mahadsan yahay fannaankeena weyn taariikhdu nooga taariikhiyey juqraafi ahaan waxaan markaan kusoo dhaweynayaa cabdi colaad qulaas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت نهرتي وضعك محمد باشيري لكن جدًا كهذا ما أنت عدها. سوماليا وحد عن قصة بلاون 1960 عن قصة بلاوينا بالاستعراض تيجي. قبل كده حالي ترى قبل كمدوك. مدوك شندق موك قبنا. شندق موك قبنا. دقوي كسر عالدير. عالدير عالبور دوس مريم قال كعلو يهوبي يجريبا وبرضه بقدر لو دري كايبا نوع هاي وها بدري كعنتي تولوين بدن يدقوين بدن ياسي عدا درا وها لو قدغي دغمو كو دغمو كان هلكودي ولا ود على وعي ما دام كان اي هاد شن دغمو بك كوب 1960 هاي على كده دغمو كور 1939 كور كسوها مريك ستيدا ليتر كور كقول مريك ومقالة مرح وستيد هرول لغو دواقين انت لغو دواقين كالمدوك كالك مالما قول كسوي هاي ستيد ستيد مريك ستيد هذا ان هذا أكون نقولنا دموي كيف أكون نقولنا دوات يا مشكلة تبد سيدو حلو قيبي كالك هذا حلو قيبي oo doorsi ka horeysa loo qaybiyey cadaadada dhacday cadaadada si u dhacday ninka waxa qaybinayay ee Ceeldheer ahaa waxa goostay waxa baqa jiray qaybiya abaqad abaqoodi waxa goostay inuu suuq dadkiisa qadiyo oo dadka wax siiyo wasi gobonimo wax dhacaw laakiin maanta dadkii wax loo qaybiyo wax siiyay ay ka wadaha kalka laga yeeli maayo dad shay waxa ku dhibnay Soomaaliya isku timaado maanta gudoomiyaha madaxweynaha iyo barnaamijka kuba ka tirsan yihiin
reerahooda sida waxaa lagu qanciyey madaxweyne ku-xigeen ay xaq u lahayn iyo ra-iisul baarlamaan ay xaq u lahayn waxaa loo siiyey in madaxweynuhu qaranka uu yahay gobolka reecildheer ah hadda arrintii waa isbedeshay maanta darashada ku dhibi mayno waxaa laga rabaa maanta xaqa aan leenahay madaxweyne ku-xigeen koobaad inaan helno iyo inaan helno 15 xildhibaan wax ka yar ku qanci mayno mana qaadanayno haddaan ninka loo qaadana waa keligiis aad iyo aad buu mahadsan yahay walaalkay ulas maasha allah waa soo gunaanadeynaa markaan eegto waxaan u malaynayaa in magaalada Toronto sidaan u joogno waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay sida aan rabno baakaas inaan u sameyno una dhiirigelino dadka jooga Muqdisho waxaan jeclaan lahaa inaan waxyar halkaan aan ka dhaho xildhibaanada matala beeshaaneeto in ay xil iska saaraan ma aha meesha inay iska fadhiyaan oo aysan waxa danaha dadka oo ay matalaan inay ka hadlaan waa waajib saaran hadday garan waayaan waxaan u sheegaynaa iyaga lafaantooda doorashada dambe inaysan imaanin oo qof aadan matalaynin in aadan waxba aadan u qaban aadan ku matali doonin hadda taasito wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi